waxay dembiile Sayid Cali Macalin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ahna qisaastii marxuumad maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo uskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 faqradiisa koobaad xarafkiisa A ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka waxay eedeysanay Sayid Cali Macalin Daawud kuwaysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka 440 faqradiisa koobaad oo lala akhriyo qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa D ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay eedeysanay Sayid Cali Macalin Daawud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 434 lala akhriyo qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa D ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay dembiile Sayid Cali Macalin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ahna qisaastii marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed xukunkan cidii aan ku qancin waxa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay